wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu kala cararay kadib markii Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur uu gudaha u galay iyo shaqaalihii wasaaradda oo isaga tagay iskana dhiibay wasaarado kale. haddaba maxay tahay sababta ku kaliftay in shaqaalaha xilliga kani wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kala cararaan? warbixin kooban oo arrimahaasi ku saabsan ayaanu halkan idinkugu haynaa daawadayaal. haddaad ku cusub tahay channelkeena Xaqiiq TV waxaan kaa codsanaynaa saaxiibayaal inaad subscribe inoo saartaan. Xaqiiq TV waa wehelka bulshada, mar walba waxaanu idiin soo gudbinaynaa xogihii ugu dambeeyay ee ku jira gudaha Soomaaliya. cabsi xoogan ayaa soo food saartay shaqaalaha wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda Soomaaliya kadib markii wasiirka wasaaraddaasi loo magacaabay amiir ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. waxayna shaqaalaha wasaaraddu bilaabeen inay u wareegsadaan wasaarado kale ee dowladda iyagoo ka baqaya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur inuu markaasi xiriir la sameeyo Al-Shabaab dabeedna la kharijiyo shaqaalaha wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya. shaqaalihii ugu badnaa oo ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda Soomaaliya ayaana iska dhiibay wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo waxbarashada iyagoo ku handacoonaya inay ka shaqayn karin wasaaradda uu maamulo amiir ku-xigeenka Al-Shabaab. hase yeeshee Roobo ayaa amar ku bixiyay inay soo laabtaan dhammaan shaqaalaha wasaaradda ka cararay. shaqaalaha ayaa waxyaabaha ay u carareen waxaa ugu muhiimsan inay markaasi kala baxsadaan naftooda iyagoo ka baqaya in la kharijiyo maadaama nin xiriir la leh Al-Shabaab uu diinta iyo awqaafta hogaaminayo. arrintan ayaa dad badan siyaabo kala duwan uga hadleen, waxaana ay markaasi dadku ay sheegeen haddii wasaaradda uu markaasi isagu yimaado Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur inuu dhammaan kharijinayo shaqaalaha wasaaradda. dadka ayaa codsi iyo sidoo kale baaqyo kala duwan u jeediyay shaqaalaha iyagoo markaasi uga digay inay markaasi iyagu sii joogaan wasaaradda diinta iyo awqaafta maadaama nin Al-Shabaab ka tirsan oo xil ka hayay oo xil markaasi ka qabtay wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya. dad badan oo arrimaha siyaasadda gorfeeya ayaa tallaabada loogu dhiibay Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya ku tilmaamay inay tahay mid qaldan oo uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu markaasi ka dambeeyay in Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur laga dhigo wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay jiraan culimo badan oo ka cilmi badan dadkana aan baabi'in maadaama ninkan horay uu u baabiyay shacab Soomaaliyeed oo tir ahaan kor u dhaafaya 1 milyan. dembi kasta hadduu soo galo qofka hadduu nool yahay tawb buu helay. laakiin qofka marka ugu dambayso dhimanayo hadduu dembi si galo ku khatimo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tagay oo dembi weyn oo la tagay bay sheegaysaa. tawbadu way furan tahay wa tuubu ila Allah jamii'an ayyuhal mu'minuun. waxaan leeyahay tawbad keena oo dhamaanteena tawbad keenana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay oo tawbad keenaya mar walba. nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yiri. riwaayad kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd. insha Allah ta'ala waxaan leeyahay baraaruga waad u jeedaan waxa meeshan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyay boqolaal la leeyahay ama burbursan yihiin. leeyahay tan oo kale haddii toosan aqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan ma aha tawbad keeno baraarugan leeyahay. Soomaalidu war badan bay sheegaan, waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen. waa iska sheeko Soomaaliyeed. markii uu kulaal baa nafta noo keentay maxaan sameynaa markaas kii ugu roonaa baa yiri koor inta la soo qaado ama waxa la bahalkan jariska la yiraahdo waxa tiraahdaa qoorta loo suru yiri marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yiri gabashe markay soo boodo koortiga dhawaaqayso waa kala yaacayna. taladii waa la isla gooyay laakiin yaa qoorta u suraya marka kii suri lahaa baa la waayay. marka waxa la rabaa in dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro. waxa kale oo jirta maxamaha Soomaaliyeed waxay dhahaysaa budaalo wal iska la qayliyay. budaalo wal iska la qayliyay bimaana qoomiya waa lagu wada qayliyaa leeyahay wax kale ma. marka hadii qoomiyada in lagu wada qayliyay rabta. ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanaya lagu dhigeysanaya fariintaada guud ee dadku u diraysaa maxay tahay? anigu fariinta guud oo dirayo waxa weeye Soomaalidu inay midoobaan dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u midoobaan. ay u midoobaan oo garabka is qabsadaan. khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba mooshin baa la sidaa leeyahay inta meel la dhigo. dembi kasta hadduu soo galo qofka hadduu nool yahay tawb buu helay. laakiin qofka marka ugu dambayso dhimanayo
hadduu dembi sii galoo ku khatimo oo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tegay oo dembi waaweyn uu la tegay bay sheegaysaa tawbadu way furan tahay وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون waxaan leeyahay tawbad keena oo dhamaanteena tawbad keena ana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay una tawbad keenaya mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yiri riwaaya kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd insha Allah taala waxaan leeyahay baraaruga waad u jeedaan waxa meeshan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyay boqolaal la laayahay ama burbursan yihiin leeyahay tan oo kale hadii tu toosan aqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan ma aha tawbadkeena baraarugan leeyahay Soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen waa iska sheeko Soomaaliyeed markii uu kulaal baa nafta noo keentay maxaan sameeynaa markaas kii ugu roonaa baa yiri koor inta la soo qaado ama waxa la bahalkan jariska la yiraahdo waxa tiraahdaa qoorta loo suru yiri marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yiri gabashe markay soo boodo koortiga dhawaaqayso waa kala yaacayna taladii waa la isla gooyay laakiin yaa qoorta u suraya marka kii suri lahaa baa la waayay marka waxa la rabaa in dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro waxa kale oo jirta maxamaha Soomaaliyeedo waxay dhahaysaa budaalo wal iska la qayliye budaalo wal iska la qayliye bimaana qoomiya waa lagu wada qayliyaa leeyahay wax kale ma marka hadii qoomiyada in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanay lagu dhigaysanayaa fariintaada guud ee dadku u diraysaa maxay tahay anigu fariinta guud oo dirayo waxa weeye Soomaalidu inay midoobaan dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u midoobaan ay u midoobaan oo garabka is qabsadaan khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba mooshin baa la sidaa leeyahay inta meel la dhigo dambi kasta haduu soo galo qofka haduu nool yahay tawbuu helay laakiin qofka marka ugu dambayso dhimanayo haduu dambi sii galo ku khatimo oo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tegay oo dambi waaweyn uu la tegay bay sheegaysaa tawbadu way furan tahay وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون waxaan leeyahay tawbad keena oo dhamaanteena tawbad keena ana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay una tawbad keenaya mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yiri riwaaya kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd insha Allah taala waxaan leeyahay baraaruga waad u jeedaan waxa meeshan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyay boqolaal la laayahay ama burbursan yihiin leeyahay tan oo kale hadii tu toosan aqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan ma aha tawbadkeena baraarugan leeyahay Soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen waa iska sheeko Soomaaliyeed markii uu kulaal baa nafta noo keentay maxaan sameeynaa markaas kii ugu roonaa baa yiri koor inta la soo qaado ama waxa la bahalkan jariska la yiraahdo waxa tiraahdaa qoorta loo suru yiri marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yiri gabashe markay soo boodo koortiga dhawaaqayso waa kala yaacayna taladii waa la isla gooyay laakiin yaa qoorta u suraya marka kii suri lahaa baa la waayay marka waxa la rabaa in dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro waxa kale oo jirta maxamaha Soomaaliyeedo waxay dhahaysaa budaalo wal iska la qayliye budaalo wal iska la qayliye bimaana qoomiya waa lagu wada qayliyaa leeyahay wax kale ma marka hadii qoomiyada in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanay lagu dhigaysanayaa fariintaada guud ee dadku u diraysaa maxay tahay anigu fariinta guud oo dirayo waxa weeye Soomaalidu inay midoobaan dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u midoobaan ay u midoobaan oo garabka is qabsadaan khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba mooshin baa la sidaa leeyahay inta meel la dhigo dambi kasta haduu soo galo qofka haduu nool yahay tawbuu helay laakiin qofka marka ugu dambayso dhimanayo haduu dambi sii galo ku khatimo oo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tegay oo dambi waaweyn uu la tegay bay sheegaysaa tawbadu way furan tahay وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون waxaan leeyahay tawbad keena oo dhamaanteena tawbad keena ana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay una tawbad keenaya mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yiri riwaaya kalena 70
toddobaatankii boqolkan isdiidi maayaanbe taasay ahayd insha allahu tacaala waxaan leeyahay un baraaruga waad ujeedaan waxa meeshaan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyey boqolaalna la la-yahay ama burbursan yihiin waxaan leeyahay tan oo kale haddee tu toosan caqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan maahe toobadkeenoo baraarugaan leeyahay soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yidhaahdaan dooli baa tashaday bay yidhahdeen waa iska sheeko soomaaliyeed marka niyo mukulaal baa nafta noo keentay maxaan samaynaa markaasaa kii ugu roonaa baa yidhi koor inta lasoo qaado ama waxaa bahalkan jaraska la yidhahdo waxaa tidhaahdaba qoorta ha loo suruu yidhi marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yidhi gabashe markay soo boodo koortiyaa dhawaaqaysa waa kala yaacayna taladii waa la isla gooyey laakiin yaa qoorta u surayaa marka kii suri lahaa baa la waayey marka waxaa la rabaa inay dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro waxaa kaloo jirta mahmaha soomaaliyeedoo waxay dhahaysaa budaalo waa la iska laqayliye budaalo waa la iska laqayliye bimacnaa qumaya waa lagu wada qayliyaa le wax kale ma marka hadii qumayada in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanaya lagu dhegeysanaya